Abdullahi mahadsanid Cabtoosh. dabka kacay gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa dilay ugu yaraan 10 ruux 20,000 oo ruux oo kaleetana ku qasbay inay isaga qaxaan guryahooda. xaalad degdeg ah ayaa lagaga dhawaaqay qaybo kamid ah gobolkaas. ugu yaraan 1,500 oo dhisme ayaana ku burburay. maamulka madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay in ay ku dhaqaaqayaan qorshayaashii meesha looga saari lahaa siyaasadii Obama ee looga gol lahaa in shirkadaha korontadu ay dhimaan wasakhaynta hawada. madaxa hay'adda badbaadada deegaanka Mareykanka Scott Pruitt ayaa kulan ka dhacay Kentucky ka sheegay in uu dhamaaday dagaalkii ka dhanka ahaa dhuxusha. maxkamad ku taala dalka Australia ay ka socotaa dhageysi ku saabsan in ay cadeyso in ay xilka sii hayn karaan 7 xildhibaan arintaas oo salka ku haysa muran ku saabsan in ay laba jinsiyadood haystaan. dhammaan 7 ruux oo uu kamid yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi ayaa qirtay in laga yaabo in ay sharciga jabiyeen markii ay isu taageen doorashada baarlamaanka qaranka iyagoo haysta jinsiyada dalal kale. dadka reer Liberia ayaa goobaha codbixinta u dareeri doona saacadaha soo socda si ay u doortaan cidii bedeli lahayd madaxweyne Ellen Johnson Sirleaf oo xilka ka degtay kadib markii ay 12 sano dalkaasi soo maamuleysay. waxay dadka ugu baaqday in aysan murashaxiinta ku kala xulanin qabiilka ay ka soo jeedaan iyo diimaha ay kala haystaan. madaxweynaha caanka ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa xilka wasiirnimada ka qaaday mid kamid ah siyaasiyiinta loo arko in ay bedeli doonaan. Emerson Mnangagwa oo ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ayaa laga qaaday xilkii wasiirka cadaaladda. dowladda Iiraan ayaa soo bandhigtay dacwado hole oo ka dhan ah Nazim Zaghari Ratcliffe oo ah gabadh Iiraaniyada oo haysata dhalashada Britain, taas oo dacwadeedu ay soo jiidatay dareenka caalamka. hadda waxay ku jirtaa xabsi iyada oo horey loogu sii xukumay 5 sano oo xabsi ah iyadoo lagu eedeeyay in ay meel uga dhacday ammaanka, laakiin eedeymahaas way diiday. ugu dambeynna xulka qaranka ee Iceland ayaa noqday dalkii ugu yaraa ee abid u soo baxa koobka adduunka iyagoo 2-0 kaga badiyay dalka Kosovo, sidaasna ku xaqiijiyay ka qayb qaadashada tartanka Ruushka ka dhici doona sanadka soo socda. sanadkii horena xulka England ayay ka reebeen koobka qaramada qaaradda Yurub. bulshada ku nool jasiiradan yar ayaa ah 330,000 oo ruux. warkii dunidana waa naga intaas Cabtoosh. Heybi aad baad u mahadsan tahay. dalka Liberia waxaa maanta loo dareerayaa doorashada madaxtinimada. waxaa xalka ka sii degaysa haweenaydii ugu horeysay ee Afrika madax ka noqota Ellen Johnson Sirleaf oo 12 sano dalkaasi xukumaysay. musharaxiin 20 gaaraya ayaa ku tartamaya doorashadaasi. Liberia 12 sano ka hor waxay soo martay dagaal sokeeye oo lagu halaagsamay, balse haweenaydan xilka ka sii degaysa ayaa dalka nabad iyo xasilooni ku soo dabaashay. Bashiir Maxamed Caato ayaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashadaasi inoo haya. dalka Liberia oo lagu tilmaamay inuu yahay wadanka ugu facaweyn qaaradda tan Afrika ayaa shacabkiisu waxay saaka u dareerayaan doorashada guud oo ay ku soo dooran doonaan shaqsiga maamuli doona dalkaasi. doorashadan ayaa waxa ku loolamaya musharaxiin gaaraya 20. madaxweynaha xilka ka degaya haweeneyda lagu magacaabo Ellen Johnson Sirleaf oo qabatay xilka madaxtinimada ee wadankaasi sanadkii 2005 ayaa noqotay haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota qaaradda Afrika. maray goorsii horeysay khudbad ka jeedisay telefishinka qaranka ayaa waxay sheegtay in doorashadani ay taariikh u tahay dimuqraadiyadda wadanka Liberia. For the first time in 3 generations, we will be transferring presidential authority. markii ugu horeysay muddo 3 jiil ah waxa awoodda madaxtinimo ee dalkeena uu si dimuqraadiyad iyo ammaan leh oo madaxweyne la doortay xilka ugu wareejin doona madaxweyne kale. caalamku isha ayuu nagu hayaa. aan sharafno iyaga iyo nafteenaba. Let's make them and make ourselves proud. xilli haddaba shacabka dalkaasi ay go'aan ka gaarayaan madaxweynaha xiga ayaa waxaa dib u soo laabatay saameynta siyaasadeed ee madaxweynihii hore ee wadanka Liberia Charles Taylor kadib markii musharaxa madaxtinimada ee Liberia George Weah uu madaxweyne ku-xigeenkiisa u xushay xaaskii hore Charles Taylor oo lagu magacaabo Jewel Taylor. madaxweynihii hore ee wadanka Liberia Charles Taylor ayaa ku xiran xabsi ku yaala wadanka Ingiriiska isagoo qaadanaya xukun xabsi oo gaaraya 50 sano kadib markii maxkamadda dambeeyada dagaalka adduunka ay sheegtay inuu dambiye ka geystay wadanka Sierra Leone ee dariska leh wadanka Liberia. musharaxa ku guuleystay doorashada wadanka Liberia ayaa u baahnaan doona wax ka badan 50% codadka la dhiibto, waxaana la saadaalinayaa in loo gudbi doono wareegga labaad ee doorashada. qodobka ugu muhiimsan ee shacabka dalka Liberia ay ka fiirinayaan doorashadan ayaa ah nabadda iyo xasiloonida dalkaasi. dalka Liberia oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 5 milyan oo qof ayaa waxa uu soo maray dagaal sokeeye oo ka dhacay dalkaasi 90-meeyadii, waxaana la sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen dad gaaraya 250,000 oo qof halka kumanaan kalena ay ku barakaceen.
mahadsanid bashiir aan facebookga u galo maxamed ibraahim cabdiraxmaan wuxuu joogaa muqdisho wuxuu yidhi liberiya waa waddan dagaallo sokeeye ay soo mareen doorashada maantana waxay u muuqataa midii uu kaga gudbi lahaa dagaaladii horay u soo socday soomaaliyana sidaas oo kale ayaa laga rabaa ayuu yidhi wahagaag haatanna kismaayo iyadoo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose uu weli ka socdo shirka maamul goboleedyada soomaaliya ayaa waxaa laga warsugayaa bal waxa ka soo bixi doono qaar ka mida ururada rayidka ayaa walaac ka muujiyey shirkan ka socda kismaayo cali cabdulaahi cigaal cali baashi oo ah guddoomiyaha hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee faanoole ayaa waxa uu sheegay in shirkani uu yahay mid caqabad ku ah geedi socodka nabadda ee soomaaliya qadka teleefonka ayuu isagoo maraykanka jooga ugu warramay bashiir maxamed caato waxaan ka hadlaynaa waxa weeye waa shirka kismaayo ka furmay uu dhigay gogosha madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaan isla markaasna ay kasoo qayb qaateen madaxda maamul goboleedyada kale waxaa noola muuqata annaga shirkaas inuu yahay shir dhabarjibin ku ah nabadda soomaaliya shir dhabarjibin ku ah arrimaha geedi socodka nabadda iyo dastuurka hergelintiisa soomaaliyeed ood og tahay in loo balansanaa 8 bisha October in la ansixiyo oo laga doodo oo maamul goboleedyadu ka geystaan aragti fog iyo mid sokaba isla markaasna ay baajiyeen waxaan ognahay oo ka bulshada rayid ahaan aan ognahay shirka kismaayo inuusan iska imaanin inaan looga hadlaynin arrimo dadka rayidka ah dan u ah arrimo ku saabsan bini'aadanimo inaan looga hadlaynin ee uu yahay shir siyaasadeed oo lagu dhabar jebinayo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ay u qabaan dawladnimada iyo nidaamka ifay ee nabadda ku saleysan ee hadda adduunkuba ay soo dhaweeyeen ee hadda xamar ka dhisan idinku marka walaaca aad ka qabtaan shirkana muxuu yahay anagu marka walaacan qabno waxa weeye inay ammaanka dalka uu faraha ka baxo wax kasta oo dawladdu ay damacdo iyo Soomaalida nabadda u ah iyo qaabka bini'aadanimada intaba inuu ka hor imaan doono waxaad ii sheegtay in ururkiina uu u doodo xuquuqda aadanaha marka idinku maxay idin ka galay siyaasadda annaga siyaasadda waxa naga galay waxaan u doodnaa dadka rayidka ahna wixii dantooda ah ayaanu u taagannahay habeen iyo maalin muddo dheer oo 30 sano ah u soo taagnayn qaasatan hay'adda xuquuqda aadanaha ee faanoole waxayna u taagan tahay wax kasta oo ku saabsan bini'aadanku ay leeyihiin xaq dhaqaale siyaasadeed intaba inaan ka hadalno iyo horumarineed oo dadka danta rayidka dan u ah maamul goboleedyada dalka ka jira waxay sheegeen in shirkan uu yahay mid wada tashi ah marka maxay tahay dhibka ku jira in wada tashi la sameeyo hadday wax tabanayaan oo dawladdu wax ka tabanayaan waxay leeyihiin aqalka sare ayaa la aasaasay dawladdii hore tan ka horeysay xasan sheekh waxaa la lahaa aqalka sare laguma guulaysan laakiin midaan waxaa lagu guulaystay aqalka sare inay ayaguba soo doortaan maamul goboleedyada ay soo diraan dawladdan dhexe hadda farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xasan cali khayre ra'iisul wasaaruhu maamulkii waa ka horeeyeen baarlamaanka iyo nimanka la yiraahdo aqalka sare waa ka horeeyay ayagoo dhisan bay u yimaadeen ayagaa doortay ka sokoo hadalladan aad warbaahinta u marnaysaan maamul goboleedyadan aad ka hadlaysaan iyagu si toos ah ula xiriirteen oo arrinta ma kala hadasheen si toos ah waa ula xiriirnay ilaa Dubai markay joogeen baan la xiriirnay anaga ka hay'ad ahaan waxaan jecelnahay inaan gaarsiino dhawaaqayaga iyo baaqayaga dadka rayidka waxa ay rabaan cali baasha oo isagoo maraykanka jooga qadka teleefonka BBC-da ugu warramayay aan Facebook u galo maxamed caalin wuxuu joogaa Balidhiig wuxuu yiri anigu waxay ila tahay in shirka uusan caqabad ku noqonayn dawladda dhexe kaliya waxay ila tahay in madaxda maamul goboleedyada uu shirkan ku kalifay khilaafaadka iyo muranada dawladda kala dhaxeeya wahagaag halka wali aad nagala socotaan waa BBC barnaamijkii subaxnimo ayaan bartanka kaga jirnaa qodobada soo socda waxa kamid ah caalamka oo maanta xanuunka dhimirka u dabaaldegaya ama xusaya balse haatan muqdisho magaalada muqdisho waxa lagu soo gabagabeeyay barnaamij loogu magac daray hal abuur u samee Soomaaliya oo ilaa 50 dhalinyaro ah ay ku soo bandhigayeen fikrado ganacsi oo cusub iyagoo maskaxshiil sameynayay barnaamijkan ayaa looga gol leeyahay in lagu horumariyo qaybaha ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya iyadoo dhalintana fursad u siinaysa inay la yimaadaan fikrado la maalgelin karo muddo toddobaad ah ayuu socday tartankan waxaana si wadajir ah u soo agaasimay wasaaradda qorsheynta tan ganacsiga iyo hay'adda horumarinta qaramada midoobay ee UNDP wariyahayaga BBC-da magaalada muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaa warbixintan ka soo diray Murtaasi koox dhalinyaro ah ayaa halkan isugu timid waxay la yimaadeen hal abuurro kala duwan iyadoo lagu tartansiinayo dhalin kasta hal abuurka ay la timid koox ayay hal abuurrada u samaynayaan dabadeed halkan ayay ku soo bandhigayaan waxyaabaha ay soo hal abuureen ama ay maskaxdooda ka keeneen saraakiil ka socota qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa halkan joogta waa la tartansiinayaa dabadeed koox kasta waxaa la arkayaa hal abuurrada ay halkan la timid waxaan rabaa inaan qaar ka mid ah dhalinyarada ee hal abuurkooda halkan keenay
inaan la hadlo kooxdan ayaana ka mid ah aan ku bilaabo qofkan. magacaygu waa Saciid Cabdi Xasan. waxaan la imaanay barodhagtaskan yacni suuqa markaan tagnay maamooyinkaan soo wareysanay waxay inta badan ka cawanayaan caanaha ku soo haray iyo waxyaabahaas soo marka annagana caanahaas ku soo haray maamooyinka waxaan go'aansanay inaan ka faa'iidaysano waxaan isku raacnay inaan soo saarno barodhagtaskan jiis haddaad Soomaali noogu sheegi karto waxaad ka samayseen qaabkaad u samayseen jiis oo Soomaali dabcan farmaajo magac kale kuma lahan. magacaygu waa Maxamed Cali Ciise. maxamed marka laga hadlayo inaad alaabtan oo kale gaar ahaan farmaajadan markaad suuqa keenteen misleedihiin wixii dibadda laga keeni jiray farmaajo ahaa waa looga maarmi karaa aad u weyn waa looga maarmi karaa sababtoo waxay ka samaysan tahay ayaa waxa ay tahay wixii oo wadankan ka helayna waxaa isticmaalnay liindhanaan waxaa isticmaalnay cusbo waxaa isticmaalnay qalajin waxaanan rabnaa inaan geyno hoteelada iyo ay ka faa'iidaystaan maxaa la dhihi jiray maqaayadaha laakiin processka ah in packaging lagu sameeyo oo la dhigi karo supermarketyada waqti dheer taas waa second phase laakiin hadda waa diyaar. koox kale oo halkan joogta oo ka qayb galaysa tartanka hal abuurka iyo halkan joogta waxaan rabaa inaan qaarkood la hadlo magacayga waa Axmed Nuur Cilmi Cabdi. Axmed Nuur maxaad la soo shirtagteen idinku maanta waxaan la soo shirtagnay caws la bacrimiyo wey oo waqtigiisu yar yahay inuu soo baxo si aan uga hortagno abaaraha jira. halka uu saaran yahay digir galley waxyaabo kale masagadiiba ka mida ama sida dadka qaarkii haruurka u yaqaanaan bal noo sharax sidaad ku hindisteen iyo qaabkaad u samayseen. waxaan tijaabinay waxa weeye wax laga helo maxaa la yidhahdaa suuqyada magaalada Muqdisho kale galleyda maxaa la yidhahdaa digirta oo kale kadibna waxaan gelinay caagad baan ku shubnay waxay qaadatay 3 maalin inaan ku buufino biyo yarana way isticmaalay dabadeedna waa daboolnay mugdigaan ka ilaalinay sidaas ayay ku soo baxday oo ma garanaysaa waxay ku yeelatay mirihii way soo dhaleen kadibna waxaa la yidhahdaa hadduu processkan soo u socdo waxay qaadanaysaa 8 maalin inaan ku helno oo saxa. Fahmo Cali Saciid. Fahmo hal abuurkan la timaadeen muxuu ka bedeli karaa suuqa beerihii iyo cawskii waad ogtahay waddankeena abaara soo laalaabtay ayaa markasta jira xoolaheena waxay u dhimanayaan daaq la'aan. wuxuu ku soo kordhin karaa masalan markii la waayo roob in la heli karo weli baahida aysan sii joogsan oo xoolaha weli la siin karo nafaqo ay cunaan cunto ay cunaan soo marka waxa waaye fikrad cusub waa aan rajeynay inay hirgasho. saraakiisha hay'adda horumarinta qaramada midoobay ee UNDP ayaa ka mid ah dadka mashruucan soo agaasimay waxaana ka mid ah gabadhan oo la yiraahdo Faadimo Axmed. Faadimo hadafkaad ka lahaydeen mashruucan aaraada ama fikradaha ama hal abuurada ay ku soo bandhigayaan dhalinyarada muxuu ahaa? fikradda aan ka lahayn waxa waaye waxaa jirta shaqo la'aan aad u baahsan waddanka ka jirta waxay saamaysaa shaqo la'aantu dhalinyarada waddanka jooga marka waxaan rabnay inaan dhalinyarada ka dhigno dhalinyarada soo alifi kara shaqadii ay qaban lahaayeen si ay u noqdaan dad isku u shaqaysta dadkana iyo waddankana wax u qabto wax u tara marka fikraddaasaan ka lahayn. waayahay markii aad dhalintii isu keenteen ay hal abuuro kala duwan ay la yimaadeen maxaa idinkaga soo baxay? waxaan nooga soo baxay waxaan ogaanay dhalinyarada Soomaaliyeed inay leeyihiin dhalinyaro aad u xirfad badan marka hore marka labaad inay ka go'an tahay dad ku qarash gareynayo waqti gelinayo oo lacag haday haystaan gelinayo inay horumariyaan waddankooda aad nooga soo baxday inay ka qayb geli karaan horumarinta iyo shaqo abuurka waddankooda ayagayna saameynaysaa midda ugu badan. aad buu u mahadsan yahay codkaasi waxa ugu dambeeyay warbixintii Ibraahim Maxamed Aadan oo Muqdisho ka soo diray. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. wahagaag haatana gaalkacyo maanta waxay ku beegan tahay maalinta caafimaadka dhimirka wadamo badan oo colaade ay ragaadeen oo Soomaaliya ay ku jirto ayaana kamida meelaha ugu badan ee ay ku nool yihiin dadka dhimirka ka xanuunsanaya. magaalada gaalkacyo waxa ka furan xarun u gaar ah haweenka dhimirka ku xanuunsanaya oo dad samafalayaal ay hirgeliyeen waxaana haweenkan ku jira halkaasi laga keenaa meelo kala duwan oo dalka ah. Dr. Axmed Diiriye Sugulle oo ka tirsan xaruntaasi ayaa adeegyada ay xaruntaasi bixiso uga waramay. Faadimo Macalin Abuukar. waa mahadsantahay walaalaha xilliga waxaa la furay 2011 bisheedii January baa la furay xaruntan waxaana furtay dhalinyaro iyo wadaado maxsuuliyiin oo isu tagay baa furay oo aan cilmi lacag ka helayn oo ayagu iskoon si xilqaamay hadda ilaa iyo hadda sidii ku socota waxaana u gaar tahay gabdhaha 24 sanadood baa taala gabdhaha kaliya la jiisiyaa. maxay tahay marka sababta ka dambeysay in xaruntan laga dhigo mid haweenka uun gaar u ah? exactly waxa ka dhigay horta tabarta xaggeeda markii hore oo in xarun dhan oo isu qaybsan ragga iyo dumarka lama helin waxaa kaloo ka dhigay oo muhiimada gaarka loo siiyey gabdho waxaa jiray
oo magaalada dhexdeeda orda gaalkacyo oo labadaba xaafadood isaga gudba xaafadaha hadda dhinaca isaga orda oo kuwa waaran iyo kuwa miyirka qababa ay u hawoonayaan marka dad dhalinyaro ah oo wadaadaha arrintaas ka xumaaday waxay yidhi ma fiirsan karno gabdho qaabqaawan oo ordaya kadibna waxay go-aansadeen xarun inay furaan dadka waalan markii hore waxay kireeyeen meel xarun ah oo lacag lagu bixiyo $500 lagu kireeyey lacagtan laga soo aruuriyo dadka marka kadib waxaa suuroo weeyay in xarun labaad la furo oo maadaama hay'ad iyo dawlad iyo cidna lacag ku bixinayn waxaa suuroo weysay meeshii raggan in lagu daro imise haween ah oo dhimirka ka xanuunsanaya ayaa haatan ku jira xarunta hadda waxaan u malaynayaa 18 baa ku jiraan u malaynayaa kulligood markaa ma gudaha gaalkacyo laga keenay mise waxaa jira kuwa deegaano ka baxsan gaalkacyo laga keenay way ku yaryihiin xarunta waxa gaalkacyo laga keenay gobolada dhexe kilishada Itoobiya u badan gabdhaha xanuunsan laga keeno xarun gabdhaha ah oo gabdhaha u gaara oo Puntland xataa Soomaaliya ma lahaan u malaynayaa marka gabdhaha ay u gaar tahay Puntland oo dhan baa laga keenaa qaasatan waxa laga keenaa kilka shanaad ee Itoobiya waxa laga keenaa wixii Somaliland inta dhexe oo burca wixii ka soo raban tagdheer baa la yiraahdaa inta ka soo raban marka xarunta gaalkacyo kaliya ma ahan waxay u adeegtaayeen meelaha gabdhaha laga keenay ay u badan yihiin bishii oo kale imisa haween ayaa laydin keenay oo dhimir ka xanuunsanaya dhaqaalaha hadda loo hayo ku xiran tahay xarun dhaqaale loo hayo tahay boqolaal qofnaan baa imaan lahayd maalintii bishiina waa intii la rabaa imaan karta laakiin hadda celcelis waxaa loo timaada bishii markii aan ku isku celceliyo 10 beh markii la isku celceliyo haweenkan in meesha lagu hayo marka laga reebo maxaa kaloo ka mid ah adeegyada loo qabto adeegyada walaal waxaa ka mid ah cunadu waa free dawadu waa free jiifku waa free wax ilaahay abuurtay haddii 5 qof gabadhaas wado waxba lama weydiiyo haddii keliya taana iska daa warkeeda wax la weydiiyo ma jiraan lacag baan laga qaadin onaan la weydiinin jiif baan la weydiinin waa lacag la-aan weeye wax kasta hawshan yaa idinku gacan siiya hawshaas inaba hawleekaatay hay'adna lacag uma bixiso dawladna lacag ma bixiso waxaa bixiya dad naxsinayn oo isu tagay marka laga reebo local government-ga gaalkacyo oo wax yar oo lacag ah barnaamij si boortiya ku bixiya oo ku taageero marmar ah oo ka garan ka dawlad hoose gaalkacyo joogta markasta lagama helo laakiin waa dad dalka iyo dabadaba jooga oo maxsiniin oo iyagu isxilqaaday baa wax soo dhiiba dr axmed diiriye sugulle isagoo gaalkacyo jooga BBC-da u waramayay wahagaag daahir jaamac diiriye waa gudoomiyaha ururka dadka naafada ah ee gobolka Saraar ee Caynaba ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland wuxuu sheegay isagoo Hargeysa jooga isaga iyo xubno kale oo ururkaasi ka tirsan inaynan helin wax taakula ah wuxuu u waramay daahir jaamac wariyahayaga Axmed Saciid Ciga ururka naafada Axmed Saciid Ciga wuxuu ka kooban yahay 784 hadda aan liiska tiradooda aan haynaa kuwaasoo isugu jira naafadii dabeeciga ahayd iyo naafadii ahayd dagaalada ay waxyeeleen marka ururkaygu wuxuu isugu jiraa dad naafaha oo fara badan ka kooban 784 marka 700 iyo dheeraadkaasi ma ku jiraan dumar wuu ku jiraa dumarku waxa weeye 183 maxaad u qabataan markaa idinku ururkan maxaa u samayseen maxaa u qabataan himilada waxay tahay qofka naafada inaan fahamsino in naafadu ay tahay qalbiga oo qofku inaanu isu fahmin haddii uu naafado ama uu indhaha waayo ama uu waayo laxaadkiisa qaybo ka mid ah inaan u arag inuu ka dhacay noloshii waxaanu fahamsiinay in qofku wax qabsan karayo inuu wax dhisi karayo inuu darwal noqon karayo inuu sida dumarka kale waxaanu baraa harqaanka oo kale sida maryaha loo tolo hidiya dhaqanka oo kale waxay naga caawiyaan dumarka oo kale in ay loo sameeyaan cuntada karintooda ay baraan arday kale oo kasii hooseysa marka taas lafteeda waxay keentaa duruufo badan in qofku uu fahmo aanu kala dadaalno inuu hadduu qofku naafoodo inaanu ka dhicin noloshii ma jirtaa iskuulo masalan u gaara naafadoo kale kuwa indhaalaya kuwa dhagaalaya axmed waxaa jira meelo yar oo anagu aanu iskayo isugu abaabulno oo aanu wax ku qabsanno tababar ku qaadano laakiin cid aan iskuul noo samaystay weli ma jirto mid dowladeed iyo mid madax baheed ay noo samaysatona waa taanu codsanayno hadda gobolka Saraar ee Caynaba magaalo madaxda waa gobol ballaaran marka ma magaalada Caynaba kaliya intaasi ay ka jirtaa naafadaasi aad madaxda u tahay ururka gobolka mise degmooyinka ku jirtaa degmooyinka ku jira xaflada xafiis badan ku shaqeynaa si xawliyo noogu shaqeeya mid wuxuu ka furay degmada og la yiraahdo midna wuxuu ka furay magaalada madaxda oo Caynaba labadaasaan ku shaqeynaa waxaan isu qaashanaa si aan u fahamsiino qofka naga hooseeya inuu u arko noloshiisa kaabi karo wax la soo bixi karayo sidaa awgeed qofkii waxaa helay dadka aan hadda nagu dhacay oo noo raacay waxaan ku nakaabi jiray xoolaha
xoolihii way naga baxeen abaarta ayaa aad noo samaysay annagoo awliba dad markii hore jecel dhisay bal ayaa abaartina na sii taabatay wixii aan haynay ay naga fara baxeen adigu bal iyo waran xagga naafa ka tahay waad dhatinaysaa anigu wax ka ahay gacanta iyo aad ma naafa ka ahay marka maxaa kugu dhacay aadku wuxuu ahaa booliyo gacantana waxay dagaaladii baa dhex bariga dhacay markaad eegto gaari waad wadataa balka waran dadku wax ka warbayd ku sameeyaan axmed awdi qof kasta horta wuxuu qoranayaa laangare waxa weeye waxay Soomaalidu taadaa aad u koraano qofka dhitinaya waxay yaadan kani waa shaydaan ama waa waxyaabo ay si ay yasayaan yacawar oo kale insha Allah indhoro kale sanqoro kale meel uma dhaafan marka taalafteedu qofku inuu fahmo waa dhalisha Ilaahay u keenay inaan ku noqon mid uu kaga dhaxbo bulshadiisii bulshada laakiin hadda aan ku dhaxno lahayn waa bulsho aad aan ugu amaan helay oo markaa ka marayso ilmihii yaraa iyo dumarkii dhalinyaradii marka loo eego sidii bari hore way dhaantaa Soomaaliya oo la caawiyaayo caadi oo shaqadii baa laga yaabaa inay siiyaan marka qaarkood hay'adaha qaarkood wallahi hadda golada bari naafo loo qaramay ma jirin naafo la caawiyana golada bari ma jirto adigu galbeedka waa laga yaabaa in hay'aduhu ay soo gaareen oo ay yar caawiyaan laakiin xagga bariga xagga naafada dhisay hoos loo eego marka waxaan ugu kalifay inaan kula kulanno waxyaabaha aan ka hadlayno baahida yaraa in ay hay'aduhu hoos u eegaan dadka disableka iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay hoos u eegaan dadka ku nool gobolada bari ee naafada daahir jaamac diiriyo oo BBC-da u warramay ayuu kaasi ahaa wahagaag waxaa noo soo socda xildhibaano Soomaali ah oo Maraykanka booqanaya balse haatan ciyaarihii weli waxaa socda isla reebka qaaradaha adduunka ay ugu soo baxayaan koobka adduunka ee ka dhacaya Ruushka sanada 2018 ciyaarihii shalay ilaa xalay dhacay waxaa ka mid ah Austria oo 1-0 ku garaacday Moldova Serbia waxay iyadana tuntay Georgia oo 1-0 ayay gurigeeda ugu dirtay Wales waa laga badiyo Ireland ayaa 1-0 kaga adkaatay Albania iyo Talyaaniga wada dheelay Talyaaniga adkaado 1-0 ku quusiyay Albania waxaadna moodaa in shantaasi ciyaarood ay dhammaantood hal gool un liiska dhalinayay Finland iyo Turkiga iyagu 2-2 ayay ku kala baxeen Iceland waa kooxdii adkeed ee sanadkii Yurub Ingiriiska meesha ka saartay waxay tuntay Kosovo oo 2-0 ayay ku dirtay Ukraine iyo Croatia wada dheelay Croatia 2-0 ku adkaatay caawa waxaa wada ciyaaraya Faransiiska iyo Belarus oo isu ballansan Luxembourg iyo Bulgaria Netherlands iyo Swedenna isha lagu hayaa oo way wada dheelayaan waana ciyaarta caawa sida weyn loo sugayo wahagaag dowladda Maraykanka ayaa ku casuuntay wadanka Maraykanka 5 gabdhood oo ka tirsan xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka ee dowladda dhexe Soomaaliya si ay wax isu weydaarsadaan waxna oga bartaan habka federaalka uga shaqeeyo wadanka Maraykanka xildhibaanadu inta ay joogaan wadanka Maraykanka waxay soo mareen gobollo kala duwan oo wadankaasi ka mid ah sidoo kalena waxay la kulmeen hay'adaha xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe Xaniifa Maxamed Ibrahim Xabsade oo ka tirsan xildhibaanadaasi ayaa u warantay wariyahayaga Maxamed Xaaji Xuseen Shiine markii ugu horeysay aan Maraykanka imaanay waxaan u nimid program la yiraahdo International Visitor Leadership Program oo inagu casuuntay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo yiraahdaan iyagu State Department-ga waxaan ka koobnay 5 gabdhood oo 2 ay yihiin golaha shacabka 3 ay yihiin sanadka marka barnaamijkaas markii hore u imaanay marka gabdhahaantaas umaalidina casuumay ragii kuma jirin maya gabdhoon baan ka koobnay hadda marka imaanay xagee baad tagteen isteeda farabada marteen halkeed baad tagteen waxaa markii hore nimidoon ka bilownay Washington DC oo aan ku sugnayn hal week kadibna waxaan tagnay Seattle kadibna waxaan tagnay Colorado kadib waxaan soo marnay Ohio ugu dambeyntiin waxaan nimid Minnesota meelaha kala duwan aad tagteen maxaad ku aragteen maxaa la idinka sheegay maxaa la idin baray barnaamijkan muhiimadiisu wuxuu ahaa exchange in wax la kala bedesho oo aan ka wada sheekeysano sida aan Soomaaliya markaan joogno u shaqeynayay iyo sida Maraykanka loo shaqeeyo dadka sharci dejinta waxaan la kulannay xildhibaano kala duwan oo ah kuwa state-ka sidoo kale waxaan tagnay xafiisyo oo Congress-da Maraykanka ay leeyihiin waxaan kaloo la kulannay hay'ado caawiya sharci dejinta wadankan sidoo kale waxaan la kulannay oo kulamo la yeelanay hay'adaha humanitarian-ka ee arrimaha Soomaaliya daneeya oo caawiyana wadankani maadaama uu yahay
wadan federaal ah oo soomaaliduna federaal tahay markaad la kulanteen baarlamaankaasi ay leeyihiin goboladu iyo baarlamaanka guud ee wadanka maraykanka maxaa idinka baxay waxaan soo marnay oo aan ka ilaaway waxaan soo qaadanay briefing ee federalismka ah marka waxay inta badan ayna fahansiinayeen sida federal systemka wadankooda u shaqeynayo maadaama annagana aan hadda federal qaadanay wax badan aan ku kala duwannahay laakiin haddana maadaama annaga federaal aan nahay waxaan ka baranay casharo badan oo aan rabno in haddii ilaah wadanka aan tagno wadankii dadkii la wadaagno insha allah kala duwanaanshaha federaalka dowladda dhexe iyo federaalka gobolada oo kale markaad la hadasheen maxaa idinka baxay oran kartaa waxaasaa nooga baxay waxaan kaga bedelannahay for example iyaga stateka qofka governorka ah waxay u yaqaanaan governor halka annaga u naqaano madaxweyne powerful waaye awood badan ay leeyihiin laakiin haddana waxaa jiro arrimo oo iyaga aan taaban karin sida currencyga lacagta difaaca wadanka arrimaha dibadda marka waxaan aada noo soo jiitay annaga ama aan ka helnay sida ay wax u kala habaysan yihiin TOR-kooda ay u kala leeyihiin oo ay u ogyihiin kuwa stateka shaqadooda waxay tahay kuwa federaalka iyagana shaqadooda gaarka ay ugu egyihiin goboladaasi aad marteen soomaali baa degan bal soomaalida halkaa joogtaa iyaga maxaa idinka baxay maxaad ka barateen runtii soomaali badan baan la kulannay gobol kasta oo aan tagan waan la soo dhaweynay soomaalidaan arkaynay haweenaan la qaadanaynay waqti aan siinaynay soomaalida halkan joogto runtii aad baan yani ugu faraxsanahay inay wadanka la qabsadeen oo ay yihiin dad shaqaysto una hogaansan sharciga wadanka ay joogaan ku dhaqmo dad Soomaaliyeed oo aad u shaqaystay aad waxa joogo aad Soomaalinimada ay ugu weyn tahay aad hami ugu leh oo unu dardaarnay markasta aan tagno ay nagu celcelinayeen inaan wax bedelno in wada ay aad nagu yani ugu xiiseeyeen wadankooda oo ayna daneynayeen inaan wax bedelno oo aad nagu dhiirgelinayeen si dadka waaweyn oo aan la kulannay xaniifa maxamed ibraahim xaabsada oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayay taasi ahayd waa hagaag idaacadii intaasaan ku soo qatimaya waxa ugu waaweynaa shirka magaalada Kismaayo oo isha laga hayo wixii maanta ka soo kordha kala soco idaacadaheena soo socda bbcsomali.com ay loobina waa barta aan ku leenahay internetka barnaamijkii waa naga intaa waxa soo saaray Bashiir Maxamed Caato warka waxa akhrinayay Heybi aniguna waxaan hay Catoosh tan iyo galab duhurnimada maanta intaan kulmi doono labada Afrikada bari waa dhamaan bahdii BBC oo isku duuban oo idin leh tan iyo kulankeena kan xiga nabadgelyo